waa mar kale iyo barnaamijkan scholarship-yada marka haddii aan sii amaqaadno maanta waxaan idin wadaa program qaali ah insha allah dalil waa scholarship ay bixinayso dowladda qatar ardayda 12aadka mise grade 12ka ha ka faa'iidaystaan insha allah u sheekay saaxiibadaada walaalkaaga mise wiilkaaga mise gabadhaada waalidiintana daawanayo laftooda ha u sheekay insha allah waa ugu yaraan 50 program oo kala duwan oo degree ah 50 program oo kala duwan oo degree program ayaad heli doontaa insha allah waa fully funded weeye si dhamaystirna loo bixiyey scholarship-kani shuruudihiisaan kula wadaagi doonaa iyo waxyaabaha lagaa rabo marka inta kale adaa dhamaystirna insha allah linkigan waxaan kuu soo dhigayaa youtube-ka qaybta masajada insha allah hadii la yiri u sheergaray saaxiibadaada mise walaalahaaga soomaaliyeed oo aad taqaano iyo saaxiibadaada insha allah hadii la yiri shuruudaha ayaan toos u abaari doona waxyaaba la iska rabo muhiimadda waa intaas shuruudaha iyo qaabka loo apply gareeyo programmadan oo kontonka qaabka loo galo ayaa intusi doona insha allah hadaan marka financialka haddaan ka hadalno insha allah waxyaabaha faa'iidada ardayda ku guuleysata heli doonto waxaa kamid ah kow in viigi jaamacadda laga bixin doono inuusan jiri doonin fee amba lacag buugka oo takasta buug ah inuu heli doono 500 oo lacagta qadar ah bil walba ardaygu inuu heli doono accommodationkiisa sida cuntada iyo jeefka iyo caafimaadka iyo wax walba in ardayda maanaha ay wadaagi doonaan laba qol kasta laba arday ay wadaagi doonaan insha allah campus marka laga hadlayo waxaa jiri doono sanad walba markuu waxbarashada saa u dhamaato ticket baa lagaa bixin doonaa insha allah waxaad heli doontaa deganaansho waddanka qatar ah dowladda waxaa kusoo dhammaanayso qatar university ay kusoo dhammayn doonta insha allah daliri waa residence permit baad heli doonta insha allah waa content program okay field of the study at qatar university content program oo kala duwan marka waa dooqa ka ciyaar weeye qof kasta uu heli doonaa insha allah dooqiisa eligibility-ga waxyaabaha criteria kamid ah kow ardayga inuu dhamaysto high school uu haysto diblomaha grade wanaagsan inuu haysto lambar 995 meelahaas hadii gradekiisa mase average-ka 95 waa in uu buuxiyo dhammaan shuruudaha scholarship-ka ee dowladda jaamacadda qatar university ardaygu waa inuu noqdaa arday international ah uusan deganayn waddanka qatar dadka qatar ku nool oo kama apply garan karaan programkan ardayda okay waa in uu kusoo apply gareeya xilliga looga talagalay programka lambar 5 ardaygu waa inuu asaguna sidoo kale uu keena academic transcript-giisa iyo weliba warqad oo recommendation amase recommendation warqad oo macalinkaaga amase maamulaha kuu soo qoro oo kaga hadlayso iyo sheegeen adii hoga faa'iido ay leedahay dabeecadiisa iyo inuu ahaa arday dadaal badan oo hasay ka hadli doonto insha allah lambar 7 ardaygu waa inuu la imaada okay performance study-giisa waa inuu noqdaa mid wanaagsan high level mana waa adii waxay ka hadlayaan okay high excellent grade ka hadlayaan insha allah qatar university marka admissionka documentiga laga hadlayo baasbaro oo macnaha uu shaqaynayo oo valid ah high school certificate kada aan kasoo hadalnay warqadii oo recommendation kada aan ka hadlay oo reference letter ah iyo luqadda ingiriishka inuu yaqaano ardayga asaguna okay iyo documentigiisa laga rabo how to apply qaabka loo apply gareeya undergraduate programka lambar 1 account baad samaysanaysaa lambar 2 waxaad dhamaystiri doontaa application oo admissionka iyo waxa aad dooratay iyo programkaas ku saabsan haddii aad biology dooratay haddii ama business aad dooratay haddii dhakhtar aad dooratay waxa doonta dooro computer science waxa doonta complete waa dhamaystiri waxaad kala samayn doontaa insha allah dee documentiga ayaad iyagoon high school transcript iyo identification documentiga iyo passport iyo wixii waxaas iyo recommendation letterka iyo wixii dhan lambar 3 ayaad diyaarinaysaa intaas ayaa waxaad kusoo upload garaynaysaa online portalka insha allah online portalka marka aad jaamacadda page-keeda aad gasho akoonka markaa samaysto waad heli doontaa insha allah optionkaas uu ku siinaya lambar 5 xaqiiji in aad dhammaan wixii maanaha laga rabay
aad sheeg aad dirtay mise aad upload garaysay ka hor inta uusan gaarin deadline-ka mise waqtiga kama dambeyska scholarship-ka. kadib waxaad jeegaraysaa marka aad dirta kadib waxaad jeegaraysaa oo indhahaad ku haysa application statuskaaga oo jaamacadda online aad ka heli doonto insha allah. haddii ay jiraan additional oo kale waxyaabo kale oo kaa dhiman iyaga kuu soo sheegi doona insha allah, halkaasaad kala socon doontaa. lambar 7 waxay leedahay jaamacadda ayay kuu soo sheegi doontaa okay decisionka mise go'aanka admission wixii aad soo apply garaysay in lagu qaatay iyo in kale jaamacadda ayaa kuu soo sheegi doonta insha allah hadii marka waa sida usually mise ay badana ay tahay. haddaba aan galno online apply online baad dhihi marka aan kusoo dhigo linkiga markaad gasho iyo haddaan soo akhriya baad soo arki doonta kabacdi waxaad imaani okay official website iyo apply. marka official website-kaasi waxaad ka geli doontaa insha allah inaad account iyo waxyaabahaas iyo hadhowdaada dhaqdhaqaagaada kala socoto, laakiin programmadan aragno apply double online apply then wuxuu toos noo geynayaa page-ka jaamacadda saad u jeediin hoos baad usoo daadejin then waxaan sameynaynaa insha allah undergraduate program aan ku dhufanaynaa. markaa ku dhufatid hogaa yar waad sugi wax yar baad sugi okay then waxaa kuu soo bixi doona insha allah dalili programka undergraduate program waxaa ku qoran halka marka major halkan marka waxaa ku qoran major and minor baa ku qoran halkaasaas ku dhufan programmada oo dhan marka halkaan sheeg ay kusoo kormayaan marka waxaad u baahan tahay tusaale artist biology Arabic language chemistry English language okay humanity waxaan dhan sidoo kale halkan waxaa qoran credit-ka 120 credit study duration-ka 4 sano study plan-ki okay schedule-ki wixii dhan halkaan ka heli doontaa insha allah dalil hoos baa u daadegi marka listigan uu kaa dhamaado page-ka koowaad baad joogtaa page-ka labaad baad aadi page saddexaad baad aadi kan afraad kan shanaad kan lixaad ilaa inagastaad leedahay marka 50 program oo kala duwan baad ka heli fahmaysaa marka insha allah dalil qaabka loo apply gareeyaa su-aasha kale iyadana waxay tahay programada halkan ka daalacan kartaa insha allah dalil major iyo minor sidoo kale iyadana waa heli kartaa programka waa program la mid ah asagun okay aad u tiro badan ilaa 50 program oo kala duwanaa baad helin insha allah dalil apply gareentiisa apply to Qadar University halkan ku dhufan wax yar baa sugi page-ka jaamacaduna geeyey Qadar University hoos baad u degi halkan waxaa qoran start my application waa goorma waa goorta wixii aan hadda aan ka soo hadalnay oo dhan aad soo diyaarisato documentigaagii oo kale formkii aad programkaad ka codsan lahayd waxaan dhan markaa soo diyaariso halkaanaad ka bilaabay marka start my application baad platformkana wuxuu ku siin doonaa insha allah haddii aan yidhi meel aad ku upload garayso documentigii lagaga baahnaa inaad ku upload garayso programkaaga complete online admission application weeye okay halkan aad markaad ka bilaabay programkaaga insha allah haddii aan yidhi waxaan idin rajaynaa insha allah inaad guulaysatiin arday badan oo Soomaaliyeed inay programkan ka faa'iideystaan ayaan rajaynayaa insha allah waxaan idin leeyahay guul wacan u share gareeya programka saaxiibadiina iyo dhalinta Soomaaliyeed insha allah meel kasta ay joogto aad baan idin salaamaya khayr baan idin rajaynaya insha allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.